Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta waxaan doonayaa walaal inaan idila wadaago xaqiiqooyin ku saabsan xayawaanka la yiraahdo dhidada oo aynu kaga hadli doono fiidiyowgeenan maanta. Dhidadu waxa ay leedahay ilka safaysan taasoo ka caawinaysa inay ugaadhada marka ay qabsato inay si fiican ay u kala goyso iyadoo aan dadaal badan iyo juhdi dheer aan ku bixin. Waxaana ay leedahay laba dhagood oo yaryar. Dhererka dhidada waxaa lagu qiyaasaa ilaa 19 sentimitir, dabadeedana waxaa lagu qiyaasaa ilaa 2 sentimitir iyo badh. Waxa ay ku caan yihiin qodxaha dhidadu uu midabkoodu madow yahay, caaradooda yara horena ay caddaan tahay, laakiin dhidadu midabkeegu waa caddaan. Alaaba waxay wejiga ku leedahayna timo badan oo wejigeega qarinaya. Timaha qarinaya wejiga dhidadu waa caddaan. Alaaba waxay ku dhammaadaan midabka kaakiga la yiraahdo. Waxa ay labada dhagood yaryari ka caawiyaan dhidada inay heerkulka jidhkeega ay yareeyaan. Waxaana dhidadu ay wax ka maqashaa xaddi amba meel aad u dheer. Sidoo kale waxa ay wax ka urisaa meel aad u dheer, taasoo ka caawinaysa inay ugaadhada ka uriso meel aad u durugsan, isla markaana ay si yaroo dhib yar ay u ugaadhsan karto amba ay u qabsan karto ugaadheeda. Waxa ay caan ku tahay dhidadu qaab la yaab leh, qaabkaasoo ah inaanay qoorba lahayn. Waxaana intaa u sii dheer inuu leeyahay qodxo aad u badan kuwaasoo ku dhararan jidhkiisa gebi ahaantiiba. Qodxahaasoo ay u adeegsato dhidadu inay isaga ilaaliso xayawaanka wax ugaadhsada. Oo mar walbo ay dareento dhidadu inay khatar ku jirto, waxay isku duuduubtaa sidii kubadoo kale, taasoo ka caawinaysa inaanay cidba u soo dhowaan xayawaankaasi ha ahaado mid wax ugaadhsada amba mid aan waxba ugaadhsan. Xayawaanka dhidada la yiraahdo waxa uu adkaysan karaa 50 nooc oo sun ah oo badanaaba waxa uu galaa godka masaska, waxaana ay ka cuntaa masaska dhalaha yaryar iyo beedkaba. Aragga dhidadu waa daciif aroortii, markaa mar walba waxa uu soo baxaa habeenkii si uu u raadsado qaraab iyo cunto uu cuno. Markaa isagoo cunto raadsanaya ayuu socdaa masaafooyin dhaadheer. Haddii uu khatar dareemana waxa uu galaa godadka xayawaanada kale si uu ugu dhuunto. Waxay awoodaa dhidadu inay la loolanto amba ay la dagaalanto masaska iyada oo intay kubad iska dhigto ayay dabadeedana afka gashataa si aanu maska uga qaniinin. Markaasay maskana ku muddaa qodxaheega, taasoo sababtay inuu maskuna la khaakheeyo amba uu laciyo xanuun awgeed. Waxa ay ka dhisataa dhidad buulkeega amba hoygeega caleemaha geedaha iyo qoryaha si uu uga ilaaliyo qabowga xagaagii. Marka uu dhisto buulkiisa ka bacdi waxa uu bixiyaa cod ah sida guuxa oo kale. Waxa ay sheegaan saynis yahanadu in la dhaqan karo dhidada, laakiin arrinkaas maaha mid aad u fidsan qodxaheegan wax mudaya awgeed. Waqtiga ay seexato dhidadu waa waqtiga xagaaga, waqtigaasoo bilaabma bisha Oktoobar oo dhammaada bisha Maars. Way hurdaa dhidadu waqtigaasoo dhan, 2 usbuucna mar bay kacdaa si ay wax u cunto. Waxay cuntaana kaydka ay kaysatay waqtigii jiilaalkii oo dhan. Tadhadig ee dhidadu sanadkiiba hal mar bay dhashaa, waxayna uurka ku qaadaa 40 cisho. Tirada ay dhashaana waxa weeyaan 1 ilaa 4 inta u dhaxaysa. Dhidada yar waxay indhaha kala furtaa 2 usbuuc kadib marka ay dhalato. Waqtigaasna waxa weeyaan waqtiga ay cuntada bilowdo. Daawadayaal, haddaan intaa ku soo koobno fiidiyowgeena maanta, hadduu fiidiyowgu ku cajabiyey ha ilaabin inaad nagu soo biirto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.